بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعين كل جني وصائل كي قفك مسلم كاكو ساعدايي إنو سودويو قابله بشهر رمضان وسيلة دي أفراد أينو كصاب بحني أو هيد إنو قفكو ديار قروبو أو تفرقو عباده والسيلة الشناد وحين نقرنسا والتخطيط لرمضان قفكو وينو intaanay bisha ramadaan soo gelin uu takhtiidiyo wixii uu qaban lahaa ramadaan dhexdeeda uu qaban lahaa sababtu maxay tahay bisha ramadaan waa bimathaabati dawra ay ka dhigantay waa dawro qofka la gelinayo oo tadriibiya naftiisa uu ku tababarayo iimaankiisa uu ku xoojinayo taqwadiisa uu ku xoojinayo uu ku tababaranayo sabirka uu ku sabrayo taacada ilaahay tabaaraka wa tacaala marka waxaa la rabaa qofku intuu buug iyo qalin qaato oo yidhaahdo bisha ramadaan maxaad kaga faa'iidaysanaysaa qaabkeed se uga faa'iidaysanaysaa waxyaalaha lagu qaabilayo ay ka mid tahay wasiilada lixaadi waxa weeyaan qofku inuu dareemo biwaxdati lumma waa inuu isdareensiiyo weeyaan bisha ramadaan saynu naqaano dadku hal maalin bay soonka wada bilaabayaan hal maalinna waa la wada ciidayaa waa la wada afurayaa waxa soomani maxay yihiin waa dhammaan muslimiintii oo dhan ayaa soomaya haddii ay dhammaatan ayaa wada ciidaya dhammaan muslimiintii oo dhan ayaa wada ciidaya qofka muslimka markaa waa in fii dihnihi uu ka dareemo waxdada muslimiinta uu ka dareemo hadduu dareenkaasi galana waa inuu ka shaqeeyo geed dheer iyo geed gaamo u fulo sida muslimiinta loo midayn lahaa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay assawmu yowma tasuumuun waalfitru yowma tuftiruun oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay soonka waa maalintii ay muslimiintu soomaan afurna waxaa la afurayaa maalintii muslimiintu afuraan baa la afurayaa haddii udxiyo la samaynayana maalintii muslimiintu udxiyaysteen ayaa la udxiyaysanaya culimmaduna waxay ku fasireen sida imaamu tirmidi raxmatullah calayh uu sunankiisa ku soo naqlinayo أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس صونك يا فركب على الرأي محي جماعة مسلمين تا أيا للرأي دتك مسلمين تي حاجة أبطان أيا لهذه هذه مركز صونكي نمدي أفركي نمدي أضحيدنا أيتي شيء نمدينا يا وحينو دريمنا مركا إني نسيقود بومدونو إني تا شيء واجبه الله تبارك وتعالى وحلي إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وحقفك مسلم كان لو قبها هي إنو كهوس نولادو حديث رسولك عليه الصلاة والسلام حركيس حديث كاسو رسولك عليه الصلاة والسلام كسفي أبناء الإسلام ورسولك لي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ورسولك لي ذاتك مؤمنين تامركي لفيريو لمثاليو سيسكو جعليهين سيسكو نحريسانيان سيسكو تعاطفيان وكالجسد الواحد وكالوين شركة هدي هالحبينكو حانونتو دمان حبناها كالوردن way dareemayaan way la xanuunsanayaan haddii caawa fariirada cidida ku taallay ku xanuunayso fariirada keliya ma xanuunsanaysay maxaa la xanuunsanaya jirkii oo dhan baa la xanuunsanayaa waa in qofka muslimka markaa uu dhaho qof kasta oo muslima oo dhibaato haysato mid la xanuunsanaya ayaan ahay waa inuu shicaar ka dhigto ida ishtakaa muslimun fi siini arraqani wain bakaa muslimun fi lhindi abkaani wa misru rayxaanati والشام نرجستي وفي الجزيرة تاريخي وعنواني وفي أفغان منبع للجهاد أيقظني وفي المغرب تاريخ للإسلام يؤرقني وفي اليمن تشريد لأبنائي وفي السجن أبطال يؤلمني وفي الصومال بؤس وقحط أسأل الله أن يرفعها عني قفك مسلم كا وين ودرين سنادو كاسين لغو دلايو أما لغو بربورينايو ee jaynaha boodiiski ay baabiinayaan in xubin jirkiisa ka mida uu yahay qofka ka ooyaya hindi iyo hindiya dhexdeeda ka ooyaya kashmiir iyo meelo la mid ah
inuu xubin jirkiisa ka mida uu yahay. dhammaan bilaadda muslimiinta oo dhan dhibta ka jirta iyo dheefta ka jirta in dadka muslimiintu ay wada leeyihiin inuu qofku dareensanaado ee la rabaa. waa in bisha ramadaan marka ay noo noqoto midina dareensiisa si dadka muslimiinta ay dib ugu tajdiidin lahaayeen waxdadoodii iyo midnimadoodii. wasaa'ilka waxaa ka mid in lagu soo dhoweynayo bisha ramadaan attawba waraddu almadaalim waatasaamux, in qofku bad'an uu tooba cusboonaysiiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu noqdo wax alla wixii dulmi uu geystayna uu ciddii lahayd uu celiyo. dadka wayna iscafiyaan, isa saamaxaan, quluubta laysku xaadho, salaamatu sadri iyadoo la wada qabo bisha ramadaan marka ay soo gasho oo la soo dhoweeyo. allah wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala isagoo toobadeenna faraaya, watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun. marka alla tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahy qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican innahu huwa alghafuuru alraxiim. qof kastoo xadgudbayow ilaahay tabaaraka wa tacaala naxariistiisa ha ka quusanin. ilaahay dunuubta oo dhan ayuu dhaafaa. laba ismiyo cajiibana wuu leeyahayo alghafuur iyo alraxiim allah tabaaraka wa tacaala weeyaan. wuxuu leeyahy nin shaacirah yaa da aladii maa kafaahu danbu fii rajabi xataa casaa rabbahu fii shahri shacbaan laqad adallaka shahru الsawmi bacdahumaa falaa tusayirhu aydan shahra cisyaan watlu lqur'aan wasabbix fiihi mujtahidan fainahu shahru tasbiixin waqur'aan faxmil calaa jasadin tarju الnajaata lahu fasawfa tudramu ajsaadun biniiraan kam kunta tacrifu miman saama fii salafin min bayni ahlin wa jiiraanin wa ikhwaan afnaahum almowtu wastabqaaka bacdahumu xayan fama aqraba alqaasi min addaani wamucjibun bihiyaabi alciidi yaqtacuhaa faasbaxat fii gadin ahwaaba akfaan xataa mataa yacmuru alinsaanu maskanah masiiru maskanihi qabrun liinsaan. wuxuu leeyahay qofkan ka joogsan waayey dunuubta rajab ilaa uu ku daray inuu haddana alla tabaaraka wa tacaala caasiyo. bisha shacbaan waxaa kuu soo galaysa, bishii ramadaan baa kuu soo galaysaoo labadaa ka dambaysa. ee bisha ramadaanna ka dhiganyana bil ilaahay tabaaraka wa tacaala la caasiyo. qur-aanka akhri, ilaahayna tabaaraka wa tacaala xumaan ka nasah adigoo cibaadada ku dadaalaya. jidhkaaga ilaali oo waxaad ka waardiyeysaa xumaanta si ay uga badbaado naar. sababtu maxay tahay? jidh fara badan oo adduunka yaalla naar baa lagu shidi doonaa. waxaa kaloo la yaab leh, adigu maanta waxaa laga yaabaa inaad taagan tahay ama aad soo gaadhid bisha ramadaan, laakiin isweydii kam wa kam ayaa bisha ramadaan soomi jirtay oo ehelka ka mid ahaan jirtay oo dariska iyo jaarka ka mid ahaan jirtay oo walaalaha ka mid ahaan jirtay oo dhammaantoodba geeri ay la tagtay, adiguna waad soo hadhay. bishii ramadaan baad taagan tahay, fama aqraba alqaasi min addaani. shaygan geerida haddaad moodasid inay fog tahay meel dheer ma jirto. waxaa kalood ogaanaysaa kam wa kam ayaa dharkii ciidda goosanaysa oo iyagoo waaraada intay soo qaateen rabay inay toshaan kadibna kafan looga dhigay. qofka muslimka waa inuu daartiisa uu ku leeyahay aakhiro uu camiro, ee daarta adduunka uu ku leeyahay aanu mar walba camiritaankeeda ka shaqaynin. wasiilada sideedaad aynu ku soo gebagabaynana waxaa weeyaan in qofku uu barto biaxkaami soomi ramadaan. alcilmu biaxkaami soomi ramadaan waxaa lagu qaabilaya waxaa ka mid ah inuu qofku sii barto soonka uu geli doono iyo cibaadada uu geli doono axkaamta ay leedahay inuu sii barto ayaa la rabaa. oo qofka muslimkaa markuu allah tabaaraka wa tacaala cibaadada soonka uu ku caabudayo uu ku caabudo bicilmin wa macrifatin wa yaqiin uu ku caabudo. waxaa laga rabaa marka qofka muslimka inuu qaabilo ramadaan isagoo yaqaana shuruuda ay leedahay soonka uu leeyahay, axkaamta uu leeyahay, mawaanicda uu leeyahay, waxyaalaha ka jebinaya. haddii uu baran karo waa inuu barto, haddaanu baran karinna ka su'aal ahaan oo kale waa inuu dadka culimada u weydiiyo siduu alla tabaaraka wa tacaala uu leeyahay fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun. iyadoo marka aynu ka intilaaqayno wasiiladan u dambaysa ee ah alcilmu biaxkaami soomi ramadaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaynu muxaawalayn doonaa aynu isku dayi doonaa intaa ramadaantu socoto
inaynu soo gudbinno ama aynu tabinno masaa'il ka mid ah fiqiga uu leeyahay soonku uu leeyahay ama masaa'ilka aynu isleenahay way ugu baahi badan yihiin oo qof kasta oo saa'ima ayaa u baahan inaynu soo tabinno aynu isku dayi doonaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala allahna tabaaraka wa tacaala biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa waxaynu weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo khayr addunyaa waalaakhira waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala aynu weydiisanaynaa an yubaarika lana rajaba wa shacbaan wa yuballiganaa ramadaan inahu waliyu dalik waalqaadiru calayh allah tabaaraka wa tacaala khayr iyo wanaag oo dhan hayna waafajiyo subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk